بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا مطبخ منى. ما أنتم حسبنا إن شاء الله شربت لي هذا chicken soup وشربت أن كسمين دور إن شاء الله الدجاج وآدو فضود معانا وآدو وناكسن إن شاء الله وقتيدا قبوبها إن شاء الله. So let's go. marka ugu horeysa waxaan u baahanahay digsiga inaan saliid ku shubno, saliid saytuun ama saliidaas doonaysid. waxaan isku shaaxidinaynaa isla shiilaynaa 2 miro basal ah, 3 miro oo toonta ah iyo in yaroo gacanta ah oo handful oo ah kamsar. saddexdaas markay isla shaaxidaan ayaa waxaan ku daraynaa 2 miro oo kaaroot ah aan jarjaray oo nadiifiyey diirkana ka qaaday. kaarootku hore uma bislaado marka asagana wuxuu u baahan yahay in la yara shaaxidiyo 5 minute meelahaas uu shaaxidmo. kadibna waxaan ku darayaa 2 miro oo baradho ah aan diirkayagana ka qaado jarjaray. intaa markay isku yara shaaxidaan haddana waxaan ku darayaa 500 oo gram oo digaag ah. marka digaaga ma aha lugaha, waa chestiga ama breastiga marka laafta. kaas insha allah ayaan ku daraynaa. kadibna markaan intaas ku shaaxidnay yar waxaan ku darayaa insha allah buhaaraadkii ama spiceskii ama xawaashidii insha allah. waa kan digaagan ku darnay. iminkan waxaan ku darayaa xawaashidii. halkan waxaan ku shubayaa kamuun iyo waxaan ku darayaa oo kale ginger ama sinjibiil. waxaan kaloo ku darayaa insha allah kurkum baasha huruudda ah ama turmeric englishka loo yaqaano. waxaan kaloo ku darayaa insha allah pepper iyo salt, filfil aswad iyo milix. markasta iyaga kama reebo cuntada. pepper iyo saltiga aan ku daraa. xoogaa waa isku walaaqaysaa intaas. waxaad kaloo ku daraysaa markaas bay leaves oo warqadii aan kuu sheegay, waraqa sayidina muusa ee loo bixiyay carabtu yidhaahdaan. 3 mil baan ku darayaa bay leaveska ama waraqa sayidina muusa. waxaa ku daraa badanaa sharbadooyinka, qaar waan ka reebaa qaarna waan ku daraa. intaa markaas ku shaaxidisid xabuubka ama tamaandhada ayaa ku daraysaa. waxaan ku darayaa bay leaveskii. xabuubka ama tamaandhada markaad ku dartid ee isku shaaxidaan intaasna biyo kulul ayaad ku shubaysaa. biyaha kulul waad ku dabooleysaa digsiga. markuu digsigu soo karkaro dabka ka gaabinaysaa muddo 20 daqiiqadood iyo 25 daqiiqadood ayaa iska daynaysaa digsigu si ay u bislaadaan insha allah khudaartu iyo digaagu. Mm-hmm.
fargeeto yar intaad soo qaadid ayaa waxaad eegaysaa digaagii inuu bislaaday iminka 25 daqiiqadii karkarayay digsigu. fargeetaa soo qaadaysaa digaaga ayaad eegaysaa inuu bislaaday. digaaga waxaad ka saaraysaa markaas shurbadda digaaga oo dhan dhinac baad dhigaysaa, waad soo jaraysaa, waa yaryareynaysaa. khudaartu hadday bislaatayna markiiba waa shiidaysaa, haddayna bislaana dabka kusii daynaysaa si ay khudaartuna u bislaato. weliba kaaroodka, baradhada iyo inta kale waa hore u bislaanayaan. markaad shiidid shurbadda waxaan ku celinaynaa dabka, haddana dabka aada u gaabsan waayo way bisishahay, digaagii wuu bisil yahay. digaaga ayaan ku daraynaa iyo bahashan yar oo la yidhaahdo vermisil. waa cibaara can waa baasta yaryar oo noodleska u eg ama indomiga oo kale u eg weeye, oo lagu daro cuntooyinka sharbadaha. cuntooyina waa laga sameeyaa kala duwan, marka vermisil baa la yidhaahdaa. taasaan ku daraynaa. taasna haddaad doonayn waad ka dayn kartaa, haddaad haysan waad ka dayn kartaa, maaha muhiim. muhiimadda waxaa weeye digaaga inaad yaryaraysid, jarjartid, oo shurbadii aad shiiday aad ku celisid. 5 minute uma dabka saarnaanayaa waayo wuxuu dhan isla bisil yihiin. kadibna waxaad ku shubaysaa madiibad ama blade badan ama waxaad doontid, saad doontidna waad ku cuni kartaa. anagu badanaa waxaan ku cunaa roodhi subag zibda la mariyey ayaan saa ugu cunaa, ama milgacadda caadiga waad ku cabi kartaa iyadoo diiran oo kulul. maasha allah aad bay macaan tahay. labadaba waa samayn kartaa insha allah. weydinkaas daawasho wanaagsan. see you next time insha allah. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.